Kawaran haddii aad shirkad yar soo gasho oo aad shaqaale caadi ah ka noqoto, muddo kadibna lagugu eedeeyo oo lagu dulmiyo oo waxaadan galabsanin lagugu eedeeyo, shaqadana lagaa buriyo, sumcadaadana lagaa dilo, maalmo badan shaqo la'aan aad noqoto, dadkii oo kaa tagaan, xaalad adagna aad marto. Laakiin sanado kadib isla shirkaddii aad maamule ka noqoto, dadkii ku dulmiyeyna isla hortaada ay soo istaagaan iyagoo kuu baahan. Su'aashu waa, maxay noloshu marmarka qaar kuu jabisaa kadibna kuu korisaa? Qur'aanka wuxuu noo sheegay qisadii Nabi Yuusuf calayhi salaam, wiil yar oo walaalihiis ka hinaaseen, ceel lagu tuuray, lacag yar lagu iibiyey, guri qalaad lagu dhibay, xabsi la dhigay isagoo aan waxba galabsan. Xitaa dadkii la xirnaa way iloobeen, laakiin Allah subxaanahu wa tacaala markuu doono qofka, dhulka ayuu ka kormariyaa. Wiilkii ceelka lagu tuuray wuxuu noqday nin awood leh, dad baa safaf dhaadheer u soo gala. Maalin maalmaha ka mid ah, isla walaalihiis ayaa hortiisa yimid, kuwii sababta u ahaa xanuunkiisa. Markaas ayuu yidhi, ma ogtiin waxaad ku samayseen Yuusuf iyo walaalkii markii aad jaahiliin ahaydeen? Waxay yiraahdeen, ma adiga Yuusuf ah? Wuxuu yidhi, aniga waxaan ahay Yuusuf, kanina waa walaalkay, Allah ayaa noo nimceeyey. Kadib wuxuu sheegay xeerka dahabiga ah, innahu man yattaqi wa yasbir, qofkii Alle ka cabsada oo samra, Allah ma dayaco ajarka samafalayaasha dadka wanaagsan. Nabi Yuusuf wuxuu maray 2 imtixaan, mid shahwo iyo fitna ah, iyo mid murugo iyo dhibaato ah. Fitnadii wuxuu kaga baxay cabsi Allah subxaanahu wa tacaala iyo taqwo. Albaabadii waa la xiray, cidna ma arki. Wuxuu samayn karay wixii uu doono, laakiin hal eray ayuu yidhi, macaadallah, macaadallah. Qofku maanta is ilaalinaya isagoo cidna arkayn, bari Allah ayaa dadka dhexdiisa sharaf ku siin kara. Xasuusnow, ceelka aad maanta ku jirto wuxuu noqon karaa midka carshigaaga bari haddii dhibaato aad martid. Nooc walba oo imtixaan ah, qofka Allah subxaanahu wa tacaala uu doono waa la imtixaana. Imtixaankaasna waxaa la fiirinayaa waxa aad noqon doontid. Waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato, muddo ay qaadato inuu ku yimaado wanaaggii iyo sabarkii aad soo sabartay ajarkiisii, laakiin ogsoonow mar walbana qalbiga ku hay, Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu diyaariyay ayaa ka weyn maanta dhibka ku haysta. Dhibkana waxa looga gudbaa waa labadaas qaacido kaliya, inaad Alla ka cabsi la timaado, sidoo kale aad la timaado sabar. Nabi Yuusuf calayhi salaam xabsi muddo ku jiray, wuu ku sabray dhibkaas. Dhowr sano kadib waxa uu noqday wasiirka Masar. Sabarka aad hadda sabrayso bari ayuu wax weyn noqon doonaa, inta aadan degdeg oo aadan ku degdegin go'aanka aad ciyo qaadatid. Maanta sabar, natiijaduna maalin ay ku imaan doontaa. Labadaas qaacido haddaynu ku dadaalno nolosheena, wax badan ayaa inoo hagaagi doona. innahu man yattaqi wa yasbir.